Unit 1. Making a phone call. Hello. Good morning. Is Albert there? This is Al. Al, this is Bob. What are you doing? Bob? I'm sleeping. What time is it? It's 8 a.m. Time to rise and shine. 8 a.m.? Huh? Oh no, I'll be late for work. No. Today's Saturday. You do not have to work today. Oh, Saturday. That's right, no work today. Oh, that's good. Hey, are you free today? Oh, today is Saturday. Yeah, I'm free. Would you like to do something together today? That sounds good. What do you want to do? I don't know. What do you want to do? I don't know either. Why don't you come to my house and we'll think of something? Okay. I'll be there in about an hour. Okay. See you later. See ya, Al. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada dhammaantiin ardayda sharafta leh. waa macalin cabdiraxiin waa yeel media. maanta waxay noo bilaabmi doonaa course 2 ama buuggeeni labaad ayaa inoo bilaabmi doona haddii ilaahay idhaahdo. hore waxaynu soo qaadanay book 1 oo intermediate ah. book 2 isagu waa intermediate up to advanced. intermediate buu ka bilaabmi doonaa ilaa iyo advanced ayuu ku joogi doonaa. laba book oo kale ayaa ku xigi doona haddii ilaahay idhaahdo insha Allah. marka buugaagtu waxay noqon doonaan maqal iyo muuqaal dad native speakers ah oo luqadda u dhashay iyo aniga oo micneyn doona. buugga PDF-na waad haysataan baan filayaa arday kastaba. marka casharku wuxuu ku fiican yahay markasta inaad ka daba tagto oo aad wax akhriso. wixii kugu adkaada mar walba diyaar baan kula ahay. adigana ardayo markaa casharku wuxuu ku fiican yahay ka daba tag intuu qoyan yahay intaanu qalalin. marka maanta waxaan iska bilaaban doonaa course-keena haddii ilaahay idhaahdo insha Allahu. arday walba waxaan isku ognahay dadaal iyo akhris insha Allah haddii ilaahay idhaahdo. waxaan ka bilaabi doonaa unit-keena koowaad ama unit 1. unit 1 waa cutubka koowaad. making a phone call waa telefoon wicid ama telefoon garaacid. making a phone call waa telefoon wicid ama garaacid. Albert iyo Bob ayaa wada sheekaysanaya. waa laba nin. Albert waa ninka magaciisa. Bob waa inan magacii. hello ahleyn. hello ahleyn. good morning subax wanaagsan. good morning subax wanaagsan. is Albert there? so Albert maaha. is Albert there? so Albert maaha. this is Albert. kani waa Albert. this is Albert. kani waa Albert. Albert, this is Bob. kani waa Bob. Albert, this is Bob. kani waa Bob. what are you doing? maxaad qabanaysaa? what are you doing? maxaad qabanaysaa ama aad samaynaysaa? Bob, I am sleeping. Bobow waan hurdaa. Bob, I am sleeping. waan hurdaa. what time is it? waa imisadii saacadu ama waqtigu? Bob, I am sleeping. waan hurdaa. what time is it? waa imisadii? It's 8 a.m. waa 8 subaxnimo. It's 8 a.m. waa 8 subaxnimo. time to rise and shine waa waqtigii la toosi lahaa cadceeduna ay ifaysay. It's 8 a.m. waa 8 subaxnimo. time to rise waa waqtigii la toosi lahaa and shine oo ay cadceedu dhalaalaysay ama ay ifaysay. 8 a.m. 8 subaxnimo. oh no maya. I will be late. waxaan ka habsaami doonaa for work shaqada.
8 a.m. sideedii subaxnimo. Oh no, maya, I will be late for work. Shaqadan ka habsaami doonaa. No, maya. Today is Saturday. Maanta waa Sabti. You do not have to work today. Maanta shaqo ma lihid. No, maya. Today is Saturday. Ama Saturday. You do not have to work today. Maanta waa Sabti. Shaqo ma lihid. Saturday. That's right. Waa Sabti, waa sax. No work today. Maanta shaqo ma lihi. That's good. Waa mid wanaagsan taasi. Saturday, Sabti. That's right. Waa sax. No work today. Maanta shaqo ma lihi. That's good. Waa mid wanaagsan. Are you free today? Maanta fasax miyaad tahay? Are you free today? Fasax miyaad tahay maanta? Today is Saturday. Maanta waa Sabti. Yes, I am free. Haa, fasax baan ahay. Today is Saturday. Maanta waa Sabti. Yes, I am free. Haa, fasax baan ahay. Would you like to do? Miyaad jeceshahay inaan sameyno something together? Shay wada jira. Today, maanta. Would you like to do? Miyaad jeclaan lahayd inaan sameyno something shay together oo wada jir ah? Today, maanta. That sound is good. Taas waxay muuqataa mid wanaagsan. That sound is good. Mid wanaagsan bay u muuqataa. What do you want to do? Maxaad doonaysaa inaan sameyno? What do you want to do? Maxaad doonaysaa inaan sameyno? I don't know. Ma garanayo. What do you want to do? Maxaad doonaysaa inaan qabanno? I don't know either. Sidoo kale ma garanayo. Why don't you come to my house? Maxaad guriga igu iman weyday? And we will think of something. Waxaan ka fikiri doonaa shay. I don't know either. Ma garanayo. Why don't you come to my house? Maxaad guriga igu iman weyday? And we will think of something. Shay baan ka fikiri doonaa. Okay, hagaag. I will be there in about an hour. Saacad kadib baan iman doonaa. Okay, hagaag. See you later. Is aragti dambe. Okay, hagaag. See you later. Is aragti dambe. See you, Albert. Is aragti Alberto. Vocabulary study. Barashada kelmadaha waa kelmadii casharkeena ku jiray. Meel ku qoro iyaga iyo micnahoogaba insha Allahu. Rise waa toosid ama kicid. Rise waa kicid ama toosid. Together waa wada jir. Together wada jir. Shine dhalaalid ama ifid. Shine waa dhalaalid ama ifid. Late for waa habsan. Late for waa habsan. Think of malayn. Think of malayn. Free fasax. Free fasax. Free fasax. Examples tusaalooyin oo jumlad ayaynu gelin doonaa kelmadahan vocabulary study-ga. Please wake up. Fadlan kac. It's time to rise and shine. Waa waqtigii la toosi lahaa cadceeduna ay ifaysay. Please wake up. Fadlan kac. It's time to rise. Waa waqtigii la toosi lahaa and shine. cadceeduna iftay. Please come to my office. Fadlan xafiiskayga igu kaalay. We will do something together. Shay baan ka wada fikri doonaa si wada jira. I am late for work. Waxaan ka habsaamay shaqada. I am late for work. Shaqadan ka habsaamay. Okay, hagaag. I will think of something. Shay baan ka fikri doonaa. We can do together. Aynu qaban doono si wada jira. Okay, hagaag. I will think of something. Shay baan ka fikri doonaa. We can do together. Aynu wada jir u qabanno.